بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورية Somaliland oo ay isku xidhkan nagaad hormood u tahay waxay ka soo qayb qaateen shirarkii dib u nabadaynta Somaliland iyo hirgelinta xasiloonida dalka iyaga oo tiir dhexaad u ahaa shirarkii dib u dhiska Somaliland ilaa iyo haddana waxay ka qayb qaataan nabadaynta iyo adkeynta nabadda amniga. maanta oo ay tahay maalinta nabadda ee adduunka oo laga xusayo caalamka oo dhan xuska maalinta nabadda awgeed isku xidhka haweenka Somaliland ee nagaad waxay haweenka ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida kana shaqeeyaan sidii dadka reer Somaliland ay ugu wada noolaan lahaayeen nabad iyo xasilooni sidoo kalena ay ka qayb qaataan dadaalada loogu jiro nabadaynta si nabadda iyo xasiloonidu u taam u noqoto waxa lagama maarmaan ah in laga wada qayb qaato talada dalka haweenkuna door muhiim ah ay ku yeeshaan jaangooynta majaraha dalka Somaliland. haweenka reer Somaliland waxaynu ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan geedi socodka dimuqraadiyadda Somaliland iyo doorashooyinkaba. ilaalinta nabadda iyo xasiloonidu waa mas'uuliyad saaran qof kasta oo muwaadin reer Somaliland ah. dawladda odayaal dhaqameedka culumaa u diinka bulshada rayidka ah haweenka iyo dhalinyaradaba loogana baahan yahay inay si mug leh uga qayb qaataan nabadaynta iyo daminta colaadaha ka taagan deegaanada ceelaf weyn. isku xidhka haweenka ee nagaad waxay haweenweynaha Somaliland ku boorinaysaa inay ka qayb qaataan nabadaynta iyo adkeynta nabadda sida aynu ogsoonahay saameynta ugu badan ee colaaduhu waxay ku dhacaan haweenka iyo maatida. sidaa darteed waxaanu baaq ballaadhan u diraynaa haweenweynaha reer Somaliland inay si mug leh uga qayb qaataan daminta colaadaha mar walba ka soo cusboonaanaya deegaanada ceelaf weyn. Assalaamu calaykum.